وهاجاك daawadayaal intiina ku xidhan baraha bulshada waxa laga yaabaa in mar uu ka soo horbaxay muuqaalka Farxaan Diraac oo Basadiir iyo Idiliya ka waramaya Farxaan Diraac imika khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo ayuu si toos ah ugu jiraa Farxaan ku soo dhawow Saab TV ku dhawahay walaal bal horta marka hore intaynaan u gelin Basadiir iyo Idil iyo magacyada aad u bixisay dadka ajaanibta ah ee Soomaalida ah bal waxaad nooga warantaa Farxaan Diraac ka uu yahay واكما أحمد وفرحان دراع وفرحان دراع ونندن يرايا صومالي وهي شوقة ودن كيسي وكا مركا فرحان waxa muuqaaladaadu si aad u faafsan bay baraha bulshada ugu faafsayeen oo dad fara badan ba ayaa soo dhaweeyay haday noqoto af Soomaaliga aad adeegsanaysa iyo muuqaalka iyo majaajilada bal marka Basadiir iyo Idil iyo iyaguna waayo Basadiir iyo Idil waa dad Tansaaniyaan weeye oo markaan hadeer isku daro Tansaaniya ka soo wada jeedaan waa ka maxaa kugu dhaliyay markii ugu horeysay inaad muuqaalo noocan oo kala samayso inkastoo aad ahayn qofkii ugu horeeyay ee sameeya haddana waxaad ka mid noqotay dadka ugu caansan sidee bay kugu soo dhacday fikradda ah inaad luqadda Soomaaliga aad ugu turjunto oo aad dadka Soomaalida la wadaagto waxay igu soo dhacday inaan muuqaaladan sameeyo oo dabcan aan dadka la soo wadaago yani waxa jira dadka Soomaaliya dalka markuu burburay dalka Soomaaliya markuu burburay dabcan dalkii kaliya ma burburin ee afkii Soomaaliyeed laftirkiisu waa burburay marka ujeedada ugu weyn oo aan kala ahaa waxay ahayd in bal afkii Soomaaliga wixii karaankay aan ku soo nooleeyo oo maaragta muuqaalada inta soo turjumo aan afkii Soomaaliga u bedelo inta dhaqankoodii ka dajiyo dhaqanka Soomaaliga aan u bedelo si uu afkeeni hooyo u soo noqdo oo u soo maaragta u soo noolaado waa hagaag Farxaan imika sidaad sheegtay muuqaalada af Soomaali ayaad ku codaysaa laakiin se dad fara badan muuqaalkaaga may arag iyo qaabka aad u eegtay marka laga reebo sawir kaliyo ilaa imika inta nugahay laga hayo waa maxay sababta muuqaaladaada loo arki waayay sababta muuqaaladeeda loo arki waayay waxa weeye inta badan ma ahi dadka jecel in ay maaragta ama sawirro badan galaan ama muuqaalo duubaan ama dadka ay mar walba had iyo jeer soo hor istaagaan ama wax duubaan dabcan dadkaas ka mid ma ihi oo ma aha aniga doorashadaydu sidaas ma aha marka sabab aniga doorashadayda la xiriirta baa loo arki waayay sawirradayda oo badan iyo muuqaaladeeda oo badan wax kale oo dhibahay ma jiraan Farxaan waxa jira warar soo baxaya ninka Basadiir aad adigu u bixisay dabcan oo sidaad hore u sheegtay iyo adiga oo Farxaan Diraac oo ah qofka ku codeeyay maadaama markii aad daawashada dadka ku daawanay Soomaalida kugu xidhani ay farabateen isaga laftiisii uu damac ka galay uu ku damaacay maxaa ka jira wararkaas adeerow adeer horta ma aad kala cadayn dabcan ujeedka damaca laakiin way jirtaa in uu ila soo xiriiray oo aad u jecel yahay ummadda Soomaaliyeed oo dabcan uu istusay in bal maaragta dadkan faraha badan oo Soomaalida ay sida u taageersan maadaama uu yahay isagu shakhsiga muuqaalka sameeyo oo xuquuqda muuqaalka iska leh in uu dadkan helo oo ay channelkiisa ku biiraan buu aad u jeclaystay waana ka wada hadalnay aniga asagu horeyna waan u sheegay dad badan waxa jira si weyn magacaaga u garanaya oo muuqaalkaaga aan si wanaagsan u arag inkastoo sawiradaada la arkay haddana bal sidee bay dadka deegaankaaga magaalada Gaalkacyo ku nooshahay iyo Soomaalidu uga dareen celiyeen mise jiraan caqabado kaaga yimi muuqaaladaad sameysay Farxaanow adeer waa jiraan caqabado yar caqabado weyn ma jiro laakiin xogaa maaragta waxaa jirta qofku markii bulshadu barato meel walba ma mari karo oo nin dhalinyaro ah oo iska dusmeyn badan baan ahaayo maaragta iska socod badan dabcan hadda is ilaalin iyo is xakabayn iyo maaragta hadii ilaahay ku roon yahay is ilaalin kale ma jirte yani waxa weeye dhankii dhinacyo badan baan iyo naga soo xirxirmay wallahi noloshii xorriyadda ahayd waan u xiisay marka caqabad taas ka weyn ma jirto waa hagaag waxaad hore u xustay inaad wada hadasheen ninka isagu muuqaaladani soo sameeya oo ah ninka Tansaaniya u dhashay muuqaaladiisa codayso Basadiir ula baxday adigu marka ma jiraan iyagana inaad wada hadasheen Idil iyo Astro kale iyo dumarka ku jira muuqaaladaas nacdir weyna waradeer gacal iyo aniga iyo Soomaali badan hadii aan Idil iyo Astro la hadli lahayn ha
wax badan baaba iska kaaya bedeli lahaayo rag wallaahi maaragta tilaabsaday baa noqon lahayn oo intaasaaba wax walba noogu filaan lahayd idil iyo asurniyo maanaan wada hadlin waan codsaday lambarkooda inuu iisoo gudbiyo hadda ninkiina gobeed buu igu noqday waa igu adkeeyey maaqaan wuxuu ya waa hagaag kuma heshiisay oo walba horey loo yidhi waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay Farxaan Diraac oo khadka taleefanka ee magaalada Gaalkacyo Saab TV si toos ugu waramayay